Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa maanta xariga ka jaray garoonka ciyaaraha ee Muqdisho Stadium kadib markii lasoo gabagabeeyey dib u dhis ballaaran oo lagu sameeyey garoonkaasi oo ay saameeyeen burburkii xoogganaa ee dalka ka dhacay muddo 30 sano ahna aan martigelinin ciyaaro qaran. Munaasabadda furitaanka garoonka waxaa ku helinaya madaxweynaha mas'uuliyiin kala duwan oo ka tirsan golayaasha xukuumadda Soomaaliya kuwaas oo uu ka mid yahay ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka ahna kusimaha ra'iisul wasaaraha Mudane Khadar Mahdi Guuleed, wasiiro, xildhibaano, gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiil kale. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa dhanka kale wuxuu ka qayb galay furitaanka ciyaartii ugu horeysay ee garoonkaasi laga furay tan iyo burburkii. Waxa uuna nasiib ayaan u yeeshay inuu laado banoonigii ugu horeeyey ee 30 sano uu martigeliyey Stadium Muqdisho, waxaana xubnihii la socday islamarkaana banooniga la laaday ka mid ahaa wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda Soomaaliya Marwe Khadiija Maxamed Diiriye. Furitaanka garoonka Stadium Muqdisho ayaa ku soo aadaya iyadoo dowladda Soomaaliya waayihii dambe ay waday dhismaha xarumaha danta guud kuwaas oo dhammaantood uu xariga ka jaray madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka islamarkaana lagu soo dhaweynayay dabaaldega toddobaadka xorriyadda Soomaaliya.